soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Zayd ibn Xaarith oo ahaa nin saxaabi ah nabiga calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad u jeclaa oo kusoo koray nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ayaa wax isku raaceen waagii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tagayay Taayif tagayay ayay isla socdeen. marka waa tii nabiga calayhi salaatu wasalaam sida sheekada ula socotaan lasoo ataagareeyay oo lasoo dhagaxyo lagu tuuray oo la yiri naga baxa la yiri waxba anaga diintiina ma rabno, dhiig laga keenay, kabiir lagu tuuray, waxba lagu sameeyay. markaasito waxaa la socday Zayd ibn Xaarith. marka wuxuu ahaa Zayd ibn Xaarith saxaabi aad iyo aad familka nabiga calayhi salaatu wasalaam u aaminsanayeen. maalmaha kamid ah ayagoo jooga Taayif ayaa Zayd wuxuu rabay inuu meel safar yar u galo. meesha safariyarka markuu u socday ayuu wuxuu u baahnaaday mule, waxa waaye baqal I think in la dhaho ama in la dhaho dameer ma umaleynaa baqala umaleynaa in la dhaho buu raadinayay. marka nin buu tagay, ninka wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan baqashaan ama dameerkan aan kaan ijaarto. markaas wuxuu dhahay hadda way ijaaran kartaa, lacag bay ku heshiiyeen. marka wuxuu yiri hal wax le bis aan ka rabaa inaan sameeyso, meel waxaan rabaa inaan ugu tuurto daji kadib sii qaado baqasha dameera ugu yarina dameerka sii qaado. sidii ku heshiiyeen way soo raaceen, dameerkii soo koreen, soo socdeen inta kala buu yiri halkan ka bax luuqan ka bax halkaas gal. sida u socdeen meel bay ku soo dhaceen aakhirkii. meeshii markay istaageen ba Zayd ibn Xaarith radiyallahu anhu wuxuu arkay dad meyd ah ama lafaha dadka dhintay oo dhan oo meesha ka buuxaan. markaas wuxuu gartay ninkan inuu yahay nin raba inuu dilo ama dhib u gaarsiiyo waxna ka dhaco. marka wuxuu yiri kulay meeshaanayto waxa ii soo waday inaan idishe, waxaan rabaa intaan wax ugu sameynin inaan tukado 2 ragco. 2 ragco waa sunna, hadii dhib ku jirto waxa fiican in 2 ragco dhac ka siiso. wuxuu 2 ragco tuko, laakiin hadii wax runta ku sheego dadkaan oo dhan mujida dhinteen 2 ragco waxay u tartay male, iska tuka. laakiin waa tahay wuu soo istaagay, salaadii buu istaagay. markuu salaadii tukanayay dhex ku jiray ninkii uu soo dhaqaaqay, wuxuu rabaa inuu wax ku dhufto. markaas Zayd ibn Xaarith radiyallahu anhu wuxuu yiri yaa arhamar raahimiin, oday maqleen marka oo dhahay hadilin. markaas uu naxay, ninkii geesuu fiiriyay wuxuu yiri maxay taa waxaan codkan maxay taa. dan salaadii sii watay. ninkii hadana uu soo dhawaaday wuxuu rabaa inuu wax ku sameeyo Zayd ibn Xaarith. hadana yaa arhamar raahimiin u dhahay. markaleetu waxa uu maqlay cod ah hadilin لا تقتله هدلين. ودن هو استاغي ونحي ودن وحو dhahay okay waxaan codka maxayta wuxuu nabigiisu fiiri wuxuu arki waayay. markii saddexaad soo socdo yaa arhamar raahimiin yiri faras fikir like qof faras koran oo ordaya ayaa arkeen oo soo socdo ayaga soo socdaan hortooda. faraskaas qofka saaran wuxuu watay waran dheer ayuu watay oo afkiisa hore holac ka baxaya. warankii soo u socday baa ninkii lagu tuuray. ninkii wuu dhintay. subhanallah. markaasuu Zayd ibn Xaarith istaaguu fiiriyay. markuu fiiriyay just wajigiisa confusion ka muuqday. markaasuu wuxuu dhahay qofkii faraska wataa wuxuu yiri markii aad tiraahdo yiri yaa arhamar raahimiin, markii u horeysay waxaan ka maqlo yiri waxaan taagnaayo yiri samada 7 ayaan ka maqlay. markii labaad uu dhahay aad tiri yaa arhamar raahimiin waa soo socdo waxa marayay samada 1 sama dunya ayaa marayay. markii saddexaad uu dhahay aad tiraahday waan kula joogay. markii aad ilaahay ku xiran tahay ama ilaahay aad weydiisato wax si sincere ama daacad u weydiisato, ilaahay uu ka furayaa dhibka. waxyaalo badan ayaa nolosheeda in soo arkay. mar walba horta 2 ragco la tukanaya xanuun Zayd aan soo mar hadda ka hor ayaa iga baabi'isay. every time xanuunka aan soo xasuusto waan weysa qaataa, waan istaagaa 2 ragco tukadaa. ilaahay waxa u maleysay inuu iga tirtiray markaas. saan u waday alxamdulillah rabbil caalamiin waa iga baaba'ay xanuunkaas oo dhan. xanuun ma ahan physical, it was emotional xanuun ah. physical waa inaad dhakhtar tagtaa ilaahayna baridaa, laakiin mid emotional oo qalbigaaga saameynaysa haddii aad wax dareento saas ilaahay u ordo wax kale oo ku caawinaya ma jirto. indhaha taas ana xaadir ah. dad badanne comment-ka nagu soo sheegi karaan ilaahay marka u ordo aa weydiisato waxa rabtid ilaahay ma ku qadinayo, gacmaha u taag markaa rabto.
marka sheekadan ma sha Allah tabarakallah adduunkaneeto I don't know inay malaa'ig aan interaction la lahaano ama aan aragno ya laakiin si am sure inay jiraan alxamdulillah rabbil caalamiin marka ilaahan ku mahad celinayna oo islaam naga dhigay waana bil ramadaan hadda bisha ramadaan inaan ka faa'iideysano waa aniga laftigan kula hadlay inaan ka faa'iideysto waa insha Allah khayr baan idin rajeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh